ciidamada booliska Kenya ayaa maanta gacanta ku soo dhigay xabsigana u taxaabay in ka badan 30 haween Soomaaliya kuwaas oo si qarsoodi ah xaflad aroos ugu dhiganayay xaafad ku taala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya xilli guud ahaan wadanka laga mamnuucay shirarka iyo isku imaatinka si loo yareeyo faafitaanka cudurka COVID-19 laamaha ammaanka Kenya ayaa sheegay in xog ay ka heleen dadweynaha ay u suurtagelisay inay gacanta ku soo dhigaan 39 haween Soomaaliya kuwaas oo hadda lagu karantiilay macadka tababarada caafimaadka Kenya ee magaciisa loo soo gaabiyo KMTC ayagoo iska bixin doona dhammaan qarashaadka muddo 14 beri oo halkaasi ay ku karantiilaan doonaan ciidamada booliska Kenya ayaa gudaha u galay goobta ay xafladu ka socotay waxaana la arkayay qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed oo fuulaya qaybta kore ee guriga walow markii dambe ay ciidamadu halkaasi ugu tageen kadibna ay ka soo dajiyeen qaar ka mid ah gabdhaha ayaa isku dayay inay dhuuntaan balse uma suurtagelinin maadaama ciidanka booliska Kenya ay hareereeyeen dhammaanna loo taxaabay goobta lagu karantiilay qaar ka mid ah gabdhaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay og yihiin inaan la ogolayn xafladaha aroosyada iyo isku imaatinka dadka balse ayagu ay yihiin dad yar dawladuna ay taas ogoshahay haddana ay diyaar u yihiin inay sharciga u hoggaansamaan gabdhahan Soomaaliyeed ee ay soo xideen ciidamada booliska Kenya ayaan la ogeyn in la maxkamadayn doono marka ay dhameystaan muddada 14 beri ee karantiilka walow wasaaradda caafimaadka Kenya ay shaaca ka qaaday in dadkaan u hoggaansamin sharciyada wasaaraddu ay soo saartay oo ay ka mid yihiin kala fogaanshaha dadka iyo in la xirto maskarada afka lagu ganaaxi doono $200 ama 6 bil oo xariga taniya markii wasaaradda caafimaadka Kenya ay soo saartay sharciyada iyo awaamirta lagu xakamaynayo cudurka coronavirus waxaa jiray dad badan oo loo qabtay inay jabiyeen sharciyadaasi waxaana ka mid ah xildhibaano saraakiil ciidan kuwaas oo dhammaan lagu karantiilay xarumaha kala duwan ee wadanka sidoo kale dawladda Kenya ayaa tilmaantay inay soo saartay qalab casri oo ka qayb qaadan doona sidii dawladdu ay u ogaan lahayd in dadku ay isku yimaadaan